falkan naxdinta la ayaa shalay gaballici waxa uu ka dhacay deegaanka Majis Belel ee magaalada Cape Town kadib markii nin Soomaali ah oo ku beesnaa bistoolad uu weerar ku soo qaaday goobo ganacsi oo ku yaallay deegaankaasi waxaana uu toogasho ku dilay ilaa 3 ruux oo Soomaali ah kuwa ugu tagay goobahooda ganacsiga waxa sidoo kale ku dhaawacmay rasaas oo furay dad shacab ah goobtaasi ka agdhawaa kuwa oo laba Soomaali iyo ruux South African ah kadibna waxa uu isku dayay inuu halkaasi ka baxsado balse ciidamada booliiska oo durba goobtaasi gaaraya gacanta ku dhigay ruuxa dilka toogashada geystay marka uu falku dhacay kadib ayaa waxa ay suura gashay inaan gaaro deegaanka ay dhacdadani ka dhacday waxaana kula kulmay qaar ka mid ah dhalinyaro Soomaali ah oo goobtaasi ku sugnaa xilliga uu falku dhacay ayadoo ay sheegeen sida ay wax u dhaceen meeshaan maanta waxa ku dhintay 3 ruux labana way ku dhaawacantay 3 ruux saddex nin oo odayaal oo toon centerka Majis Belel laga yaqaano oo dadka ugu macquulshan maaragtay islaaxa iyo maaragtay nabadnimada iyo maaragtay alxamdulillah shukr rabbil caalamiin jamaacada salaada ku xiran bay ilaahay naga sabarsiinay gacanka gardaran baa dishay odayaal iyo waxgarad kala duwan oo goobta aaska uu ka dhacay kula hadlay bulshada ayaa ugu baaqay in xaaladda la dejiyo isla markaana aanan warar abuuri kara colaad horle laga dhex abuurin bulshada Soomaaliyeed ee ku nool deegaankaasi waxaan gudbinaynaa hawshantaa ummadda Soomaaliyeed dariiqii ay u mari jirtay markay waxaan oo kala dhacaan bay u mari doontaa haddii la yiraahdo dhalinyarada waxaan ku waaninayaa inta badan dhibka idinka keena dheef baa la idinka baahan yahay runaantii dhibkiinu ha yaraadaan leh dhalinyaro dheeftiinana badiya حقيقيا odayaasha Soomaaliyeed culimada diinta waxgaradka siyaasiyiinta dhamaanna waxaan u sheegayaa barnaamijkan inuu noqon doono insha Allah barnaamij aan gacantanada ka bixin xaqiiqiyan waan wada hadalnay xagga dhibku ka dhacay xagga dhibku ku dhacayba isla markiiba odayaashu way wada hadleen runaantii waana mudaysanahay hadda runtii bulshada waxaan ugu baaqaynaa guud ahaan dalkan South Africa joogta arinta noocan tafaasiir kale inaan loo yeelin xayalay dhacdadani waa dhacdo Soomaali kala duwan oo qabaa'il iyo gobol kala duwan ka timid ku dhacday way hal nin oo Soomaali ana u geystay asbaab marka cad ma jirto tafaasiir gooniya in loo sameeyo baaritaanka dawladda laga warsugo marka kadib wixii soo baxa waxa soo noqon dal qaanuun la joogaa halkaas marka sheekadu ay ku xiran tahay waxaan ugu baaqaynaa faralka noocan runtii qonsulka ahna si hayaha safiirka Soomaaliya u fadhiya Koonfur Afrika Maxamed Ali Miri Nabadoon oo sidoo kale aas ka soo qayb galay ayaa tacsi u diray ehelada ay ka geeriyoodeen muwaadiniinta la joogtay waxaana bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay dhacdadani waxay ka turjumaysaa dareen aad u xun waxay rajagab ka dhigaysaa dad badan oo Soomaalinimada iyo dhalinyaranimada iyo nabadgelyada ku hanweynaa especially markii waxa culays siila markii Soomaali dhexdeed ay tahay qofkii asagoo dhimanaya balaaye markay dishay iyo qof Soomaali gacantiisa markay ku dhimato waa kala xanuun badan tahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inay halkaas ku ekaato laakiin waa dhacdo xanuun badan waa dhacdo dhammaan qof kasta Soomaaliya meel walba joogo taabanaysa waana dhacdo aan uga wada tacsiyeynayna dhammaan familiyadii iyo qoysaskii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo dadkii ay wada deganaayeen Abdullahi Maxamuud Amiin Abdullahi Qorshe telefishinka qaranka Soomaaliya Cape Town Koonfur Afrika